waxaan rabaa maanta inaan dadkayga la share gareeyo videogan oo ku saabsan ninkii la dilay Nipsey Hussle yuu ahaa horta sidiisa hore. Nipsey wuxuu ahaa nin Eritrean oo kusoo koray California, especially LA Compton, ninkii yimid uu ahaa yuusan Compton nigga ma fahanteen. Marka waa la dilay, waa la aamusiyey, asagaa la aamusiyey. asagana sheekada horta aan meesha ka soo bilaabtay inii sheegaya. Marka sheekadu waxay ku bilaabatay nin waxa soo baxay la yiraahdo Dr. Sebi al dhaha. Ninkaas wuxuu cudurro badan oo aan la daaweyn karin oo daawo aan loo hayn oo ay kamid yahay HIV gu kamid yahay, cancer gu kamid yahay, diabetes kamid yihiin, STD kamid tahay. waxaas oo dhan nin wuxuu ahaa u helay daawooyin ay dadka markii la siiyo ay ku badbaadaan oo ay ku noolaadaan oo ku soo noqdaan oo noloshoodu soo noqoto. ma fahanteen? marka ninkaas waa la aamusiyey. waxaana aamusinaya waa dadku og yihiin way dadku dawladda aamusisay maahan wax dariiqa ka dhacay maahan nin saaxiibkiisa baa loo soo diray oo loo soo adeegsaday inuu dilo ninkan saaxiibkiis waayo. ma fahanteen? marka asaga maadaama asaga waxa loo dilay marka waxa waaye ninkii dhakhtarka ahaa oo la dilay oo waxaasoo cudurraa u helay dawadii lagu daaweyn lahaa. ninkaasaa la dilay. ninkaas buu wuxuu ka sameynaya documentary ah maxaa loo dilay iyo sababta loo dilay iyo reasonka loo dilay iyo waxa loo dilay iyo meesha lagu dilay uu rabo inuu ka sheekeeyo. documentary oo socda ninkan waaba la aamusiyey, asagina waa la aamusiyey. waa Nipsey wuxuu ku fiican yahay waa dadka aan kama hadleen maanta, wallahi kama hadleen, laakiin waxaan uga hadlay waxaan ogahay ninkan anu ilaa yaraantiideen iska dhageysan jiray. wuxuu ka sheekeeyay heesihiisuna waxay u badan yihiin waa dhibaatada jirta iyo sida looga bixi lahaa iyo wadanka waa garanaysaan wadanka Mareykanka especially LA waa meesha Spanishka iyo madowga iyo balaayo dhan isku dhamaysay. marka video ninkii dilay waa la qabtay. Eric Holder baa la dhahaa ninkii dilay waa la qabtay. For one guy. Well, they went around the building still searching. What the hell did he possibly do? ninkaas la hayo waa ninkii dilay ninka Nipsey Hussle, ninka Eritreanka oo documentary waday oo rabay inuu soo saaro sirtaas iyo waxyaalahaas oo ninka madow sameeyay dhakhtarka waxaas oo daawooyin helay. waa nin madow, waa la aamusiyey, asagina waa la aamusiyey. ونيو أدون كان واو دبعت مالك استدبعت بل دقيقة. Morning, everybody. It's DJ MV, Angela Yee, Charlemagne the God. We are the Breakfast Club. Let's get in some front page news. What are we talking about, Yee? Where we starting? Well, let's talk about Nipsey Hussle. His murder suspect has been captured. They were looking for him. Eric Holder. وكان نيكي دلي Eric Holder كل شيء خنيس كده لو وكاس. نكان إريتريان كهو كفينا. وأد وعدتك سكولة مشوا كيمت سكولة دي يا دكامدي يا واحد كستر دسي أو دتك لا سكري أو فقيرين تاعها guryo iyo baabuur iyo waxaasi warninka nin fiican buu ahaa, nin communities wax taray buu ahaa, nin East African u soo socdo wax tari doonana uu ahaa. laakiin waa la aamusiyey ninka wakaas ila daawada eegan ay u dhalay sankiisa
shan qol iyo barsad iyo laga ijaarin karaa. He's been transferred to LAPD custody. He is now being held without bail for Nipsey's murder. And according to law enforcement sources, they also said the woman who was the suspected getaway ninkan Illuminati nimanka la ba aamusiyay runta markii loo hadlo. driver turned herself in, but also has not been charged. She could be arrested and or charged at some point in the future, but right now she has not been charged. She said that she did not know what Holder had just done. So that's according to sources. I really am not okay with the death of Nipsey Hussle. I'm not okay with the death of any black man at the hands of any black man, but this really... maan saaxib adduunka dhan waa adduunka dhan qof aan ka hadlin ma jiro qof aan xanaaq qof aan arrinta dhibtaas ay gaarin ma jirto qof kasta oo rapper uu ka hadlay waxay tahay feels like a glitch in the matrix. Like, this makes me question so much. It makes me question my own mortality, because if someone would do that to a brother like Nipsey, I feel like the rest of us don't stand a chance. It also makes me question the law of attraction, because we always say you get back what you put out, but do you? Because you're not going to tell me the type of person Nipsey was that he deserved to get that back from the universe. Like, well, according to sources before the shooting, Nipsey Hussle and Eric Holder had a tense exchange. Nipsey had asked him if he had snitched to cops in the past, because that was the word around town. Eric Holder felt disrespected, and that's when he left to grab a gun and get revenge. Sounds ridiculously stupid. Like, this Nipsey thing makes me feel like there's no real order, no real justice in the universe anymore. Very sad. Now, was he at a mental health facility? Is that what he found him? Is that what they're saying? Yeah, he tried to check himself into a mental health facility. Like to claim that he was insane Mentally at the ill? time or something. I also know we say God does everything for a reason. I don't think God has anything to do with this. I think this was the absence of God. This was pure Satan, and it's really making me question a lot of things. Like, this is heavy, bro. It is. All right, they also have a petition to rename Crenshaw and Slauson to Nipsey Hussle Boulevard. So that petition has been filed. A lot of fans are signing that as well. And we did see a post from Lauren London and from Nipsey Hussle's sister. So sad. Yeah, really sad and heartbreaking to read. So they did break their silence and offer, their own thoughts. Lauren London said, "I am completely lost. I've lost my best friend, my sanctuary, my protector, my soul. I'm lost without you. We are lost without you, babe. I have no words." I don't like to see people redistributing pain, because the pet cemetery brings things back, but they don't come back the same. Sometimes dead is better. Pet cemetery. Date. How we gonna tell if it's right though? I'll tell you if it's in the ballpark. I mean, you would like some good food, a good playlist, and like nature, I think. Yeah. Right. Mm-hmm. Where did she write that down though? How did you check that, like if that was right? It's an internal... So she just telling me if I'm right or wrong? Yes. Gotcha. What was the last book I read? I don't know the title, I know the author. I know it's Queen Afua book. There you go. Sacred Woman. Yeah. I'm in tune, man. You know what I'm saying? What's my cell phone number? I don't know. It's 2018. Anyway, ninkaas wakaas la dilay wakaas waa u jeedaan waa ninkaas hadda waa ku daayay 33 sano uu jiray wuxuu ahaa nin Eritrean wuxuu ahaa nin dadkiisa jecel dadka madow oo dhan meel fiican gaarsiiyay dukaamo qaar u furay maasha Allah East African uu u socday inuu wax ka qabto inkastoo asagoo ku dhashay Mareykanka markasta wadankiisa uu fahamsanaa East Africa uu sheegtaa uu tugtaa calaamadiisa uu turtaa marka Soomaaliya taas waa in la shirgiriyay ninkaas waa la dilay waxa lagu dilay wuxuu rabay inuu ka hadlo nin dhakhtar oo la dilay oo dhakhtarkaas oo ahaa nin madoow oo waliba dad badan oo cudurro badan qabay cancer iyo HIV iyo STD iyo diabetes waxaas oo dhan ninkii daweeyay buu ahaa ninkii daawada soo helay buu ahaa waa la aamusiyay Illuminati ba aamusisay next video